maadaama maxaa la sheeg ani ay ma too igu dhahay oo dadka walaalka aan u tagi weyso igu dhahay waxa igu bedelo igu dhahay mustaqbalkaaga igu bedelo wax go'aan la wax haddii aad dhaafsiisanaysid share out haddii aad dhaafsiisanaysid share out mustaqbalkaaga diyaar ayaan ku ahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الكيما ملبو دريدا كجوكتان اسكو سو نقدو ناكسان او ولي بخي سلواني عبد الرحمن محمد اسماعيل channel كان قد داونيسنا waa Jabir Jamil official. hadii aad ugu cusubtahay soo dhawo hadii aad hornool joogtaan waad ku maasantahay la jirkaaga aad baa kaaga mahad celinaya fadlan hadii aad ugu cusubtahay subscribe like comment share inta muhiim ay noo tahay maanta iyo muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waa muuqaaladii hore aad ayuu ugu xasaasisan yahay aad runtii waa muuqaal aniga runtii markii aan daawaday aan bilow ilaa ya dhamaad aan daawaday runtii wax badan oo badan dareemay waxyaabo aad runtii ciil u ah YouTuber ah walibana ka tirsan YouTuberada wadankan aan ku noolnahay ee Malaysia joogta ah cabasho oo waliba ay ka cabanayso YouTuberiska Malaysia ku nool qaasatan kuwooda waaweyn ama kuwooda subscribe ka haysta fiican kuwaas oo walibana tacadiyo iyo walibana hadallo foolxun ay kala kulantay muuqaalkaas ayaan marka hore idin sii deynayaa aniga wixii aan dhihi lahaa iyo wixii maxaa la yiraahdaa aan ka dhihi lahaa arinkaas dib ayaan maxaa la yiraahdaa ugu dhihi doonaa marka koowaad muuqaalkan asla wada daawano si walibana wada jir ah insha Allah ta'ala commentiga noogu soo reeb wixii adigana fikirkaaga ah ee muuqaalkaas ku aadan ee aad ka aragtay aad ayuu maasantahay sida ay wax ula qaybsado darteed waxa uu la soo dagay xaafadaha ay ka degan yihiin dalka Malaysia laakiin sida waan u soo martay salaam marka meel ka soo guurta meel soo degto waa martiya tahay laakiin martideedii meesan igu soorin waayo dhibaato waxay ii geysteen waxay iska dhigaan in dadka Soomaaliyeed ay hal mid ay yihiin laakiin YouTuberada Malaysia dadka Soomaali hal mid u ahan gabdhaha Soomaaliyeed xataa gabdhaha daana weyn kala ficlan waayo aniga hal YouTuber ma dhahay YouTuber badan waxay igu ficlan qabiilka ani ahaan oo Ilaahay iga abuuray ama ani ka soo jeedo ay igu ficlan waxa arkay YouTuber ina ana u tagay magaciisa hadda ina sheegay marow laakiin masta hadeen qoto xiliyada soo socdo waa idin soo sheegi doona wali waan u dhaaran karaa dhibaatadan ee YouTuberada Malaysia ay sameynayaan ama si dadka ula dhaqmayaan ama wajiyadooda labaad inay yihiin waa ku dhaaran karaa kutaab jaamac ina soo qaato min taa soo fadhiista meesha hortiina ina ku soo dhaartan waa balan oo idin kugu soo dhaartay dhibaatadaas ee ani ay ugu sameeyeen okay maxay ugu sameeyeen marka waxay igu sameeyeen marka ugu horeysay YouTuberka aan la soo kulmay ama dhibaatada ugu horeysay igu dhacday waxay ahayd YouTuber la kulmay YouTuber marka la kulmay waxa dhahay wali waa YouTuber weyn oo YouTuber subscribe ka badan wato marka la leeyahay waxa la igu dhahay maxaa la sheegay waxa u baahanahay ina video ila sameysad YouTube kas marka la kulmay ama marka la soo xiriiray wax dhibaato ah ama wax caqabad ma aan kala kulmin laakiin marka uu imaaday oo video oo ila duubay oo wuxuu ku arkay calan gacantiisa ku xiran ku arkay video wali waa ila duubay janaalkayga video igala duubay waxa u soconay in asiga janaalkiisa video kala duubo oo ii soo bandhigo bulshadiisa asiga ku xiran janaalkiisa ku xiran inuu ii soo bandhigo taas u soconay videoga ii duubay wuu ii edit gareey dan marka mareeno inuu videoga asiga la duubay marka mareeno oo wuxuu igu dhahay calankan ku xiran waa calankay igu dhahay bas ani si fudud waxa ku dhahay ma taqaanid miya markaas wuxuu igu dhahay soo calanka maxaa ay galmudug ma ahan oo igu dhahay markaas ku dhahay ha wali xataa galmudug ahaan ma idin qabiil ahaan oo ii weydii wuxuu igu dhahay intuu isbedelay waayo hadirtan gabar Soomaaliyeed u ahay video ila duubay wax dhibaato ah maana kala kulmeenin laakiin wuxuu igu weydiiyay wuxuu igu dhahay calankan awdto intuu sas gacanteeda u eego wuxuu igu dhahay calanka awd soo calanka habar gidir ma ahan oo igu dhahay markaas waxa ku dhahay haawa ahaya ku dhahay haawa ku dhahay marka ku dhaw wuxuu igu dhahay waay maxaa la sheeg ani ay igu imaatay oo wallahi inta ka hadla marabo waayo قصة وحواي وحياة واي قفكس ساس أنا ما أنت يقول رقمي بري مركو محل شيء أو ضد كريمانا يقولها Somali واسكو كامل Somali ضد أو هل Somali هواي Somali ضد أو اسكو كانوا واي لكن Somali دي يوتيوبر ماليزي مو وهن واي مركو حسوق بدأنا أوي مصف السنة إن على كده بعتقد أنا حنوك آخر سنة إن أنا لسه وذاك بس أنا ماشي مصف السنة ويقوله أنا كان كل حرس أنا كبر قديم معنا يقوله مركو سوا حقوله ها ويقوله بل فيري أصحاب تقالي صوت رقمي ويقوله واي يوقي ما تو يقوله مركز حاله محكوي ما واي فيديو إن إلا ضبط واحد لسه مساكم مركز يقوله نكاس هبر قدرت أو هبر قدرت محاول تجوز أصحاب تقالي كبر ولا شيء أو محل شيء ما أنت كوي ماته أو خبيل أنا كوي إيمان أو إحنا أنا كوي إيمان واي مركو هدي
كور فيديو إلى دبي وجهي سووا فرح سنة واحد يبعت أمان أنا جوي لكن مركو أنا قبيلكم إلهي إجا أبوري في أنا مدورا إلهي إجا أبوري قبيلكم أنا إلهي إجا أبوري مركو أركو وعوره أنا ما حيجي صدق أو ماشي أيوه إما تويقوله مركزها ما حقوله ما حكوا إمامك نكسر كو قبيلة ما حقوتي ويسويقوله مركزها ما حقوله نكسرنا ولا حريري لكن ولي موس يسوي جوابين أديها يسوي جواب أولا صومالية ده ما حقبيل يقول حريصة يقوله ويقوله أرس كبح فيديو هذا مدو بكري سمركو أو قاعد أنت ما قبيل كذا تبدي ويز بدله بو وحيل الدوين ويز كنافة كاميرا وودس والله بلا أنت بين إني شيء ina oo xatay marin like ina oo marin waayo video ga markaas oo qof kasta waalidkii uu ogaana ina oo marin insha Allah isku cilna waa qof jecel ma jirto ina soo oyna inuu YouTube video soo doobo qof jecel man ma ugu reey markaas waaya ay soo doontay oo aniga ay ugu imaatay ma dadkaas kale oo tagtay waxa ku dadka kale wali maan la gaan ala wala tiin kuma oriska baxay ugu xaafadaad iska aad واش كقتي بريا ضوينا فيديوغي واضح marka xafadeeda tagay oo igu soo waa inta si socdo soo waa dhor baro soo bixin marka guriga tagay waa ku soo celiye marka ku soo celiye waxa ugu dhahay wax ma ku sheegay ugu dhaha maadaama igu soo waa inta si socdo soo waa dhor baro soo bixin marka guriga tagay waa ku soo celiye marka ku soo celiye waxa ugu dhahay qabiilkaas aad oo dhahay ana wax ma ku duba wallahi oo billaah oo dil asxaabta qaali waa youtuberada Malaysia youtuberada ka furtaan oo youtuber u waaweyn waan والله بالله طلع انت قصص ايه وقول انت بين هنا كتاب جامع انت قعدت soo saarto aan ku dhaara karaa waxay igu dhahay maadaama maxaa la sheeg ani ay ma too igu dhahay oo dadka sulaalka aan u tagweyso igu dhahay waxa igu bedelo igu dhahay mustaqbalkaaga igu bedelo wax go'aan la artu muuqaalkan runtii ma jecleen inaan soo qaato maxaa la yiraahdaa yani muuqaalka oo dhameystiran ma jecleen laakiin sababta igu kaliftay muuqaalkan inaan soo qaato ama aan ka soo hadlo ama falcelin aan ka sameeyo waa intan hadda gabadha maxaa la yiraahdaa afkeeda ka soo baxday ma idinku kala goynayo waa idin wadaaya go ahead hadalka xada way kala dhumay markaas inta soo boday wuxuu dhahay hadii aan maxaa la sheeg qabiilkaas aad talu malaano dadka Soomaalihan u tag weysir malaan waxa u baahan oo igu dhahay maxaa la sheeg ina wax iiga bedel qofka fahmi kara waxa ay yihiin waxa ku dhahay may walaalkay ma suurta galas wallahi billaah asxaabta ku taab jaamaca gacanta u gashana wuxuu igu dhahay hadii aan wuxuu dhahay maxaa la sheeg YouTube keeg ina video ka duub u baahan too igu dhahay oo wajigaada ay YouTube keeg oo soo fadhiisanayo igu dhahay wallahi billaah tala shuruudaas ay shuruudaas oo dhahay ay siina hore guriga ila tagaysa qofka taqaan hal xabban ma qarna waayo markay dadka hore imaanaa waxay iska dhigayaan dadka adduunka ugu fiican waxay ugu fiican ma jirto hal YouTuber bas wax ay qabanay toban maalmood iska xirto video iyo duway ina loo tagaa waxa lagu dhaw way maxaa la sheegnaa abir jirta wax uu qabanaysa wuuna joogaa wuuna noolaa maalin walba way u cusuriyeen qabiilka ariga cusuraha admaan agaxay ugu leeyihiin maxaa la sheegaa aniga aawutu muxuu qabiilay balata ma meesha iska doonta aniga maxaa noogu iimaaneen imala fiidoogan misi wadi kale inta gabaadi laakiin youtube-da Malaysia waa wajilay waa la wajilayaal habeen waa la wajilayaal maalin waa la wajilayaal ina ooyna miribi laakiin qasooyin badan ay sameeyeen qasooyin badan magacadooduna waa soo sheega wax alaal mid ka kala kulmana way dhahay wali xataa qaar oo qasooyin si u dhicin ama xafidooda marka tagay waxay igu bedeleen waa idin soo wadaa inta gabaadina fiidooga misi wadi kale min rabina waalidkay arkaan aniga ooynaayo tahay saad soo wada daawateen muuqaalka aad wada aragteen runtii aniga markii labaad idin la daawanayo waa idinka hore u soo daawaday marka koowaad waxaan rabaa horta marka ugu horeyso gabadhan inaan la hadlo gabadhan runtii Malaysia waa isla joognaa laakiin aqoon isku ma lihin runtii xaqiiqatan waa markii igu horeysay oo aan maxaa la yiraahdaa ay arkaayo gabadhan inaan marka ugu horeyso wax yiraahdo marka xigtana dadka ay ka cabanayso oo cabashada ay ka soo gudbisay inaan wax yiraahdo dadka Soomaaliyeed oo faniska ahna inaan ayagana wax kala yiraahdo khaasatan kuwa aniga igu xiran ama kuwa daawan doona intaba marka koowaad gabadha adan ku hormaro horta waxaan leeyahay gabadha walaashay waxba ha ciiloonin hana ciishoon mideeda kale dunidan sideedaba waxa waaye waa wareegto maanta adiga ayaa wax u baahatay berina adiga lagu soo baahan doonaa ha noqonin marka qof
ay dantu ciishay kana gaabiyey hadafkii ay lahayd iyo go-aanadii ay lahayd ay halkan ku timid. sababtoo ah markaad youtuber noqonaysid waxaa kaa soo go-ay ama go-aan aad soo qaadatay ah in aad youtuber noqoto. youtuber markaad noqonaysidna aad iyo aad ayay u adag tahay dhibaatooyinka kugu soo wajahan in aad ka hortagto ayaa kugu adag. weliba kuma sii jirto markii aad tahay gabar. oo waxaan horay video aan soo dhigay oo horay aan kaga soo sheekeynayay gabdhaha ku nool Malaysia iyo weliba xaaladaha ay ku kala nool yihiin iyo waxyaabaha ka suurtoobi karo haddii ay noqoto nolosha inay ku adkaato. soo maadaama aad tahay gabar adag go-aan gaartay iyada in ay shaqaysato dhididkeeda cunto akoonkeedaas wax ka qabsato rabto, maadaama aad tahay go-aankaas ku soo gashay ad adeeg muuji, karti muuji, hore u socon ku leeyahay. midda kale aan rabo inaan kugu daro waxa waaye waxba qof magaciisa halkan ha keenin. social mediaha qof magaciisa absolutely ha keenin. waxaan taas u leeyahay waxay tahay ilaahay waxaa leeyahay subxaanahu wa tacaala ceebtaada kun jeer oo asturaa koona kuguma daro. qofkaas ama waxaas sameynaya kaliya kuguma sameynin sida la wada ogyahay oo xaqiiqo ah. youtuberada Malaysia gabdhaha ah kuwa hadda ka baxay iyo kuwa hadda meel sare gaarayba way soo wada mareen oo gabdha ah, waana dadka jooga Malaysia way ogsoon yihiin. laakiin shakhsiyaad inaad soo magacaawdo anigu waxaan ahaanteeda isleeyahay haddii video nagu soo gaaro in aad iska dhaafto oo arrintaas aad ka gaabsato. taasna waxa waaye waa arrin aan kuu siinayo tala ahaan inaad iska dayso. waxa waaye teeda kale haddaad adiga iyo ceebaha dadka aad qariso adna ilaahay ceebahaada ugu qarinaya. laga soo gudbiyey ama youtuberska cabashada laga soo gudbiyey ayagana waxaan leeyahay tusaale tan ha idinkugu filnaato. gabar Soomaaliyeed oo idin tiri waxaan idinkaga baahanahay garab qabsi oo ama aad kor isoo qaadaan idinkaga baahanahay idin tiri ayaad waxaad ku tiri haddii aad dhaafsiisanaysid share out, haddii aad dhaafsiisanaysid share out mustaqbalkaaga diyaar ayaan ku ahay. soo micnaheedu waxa waaye noloshaada oo dhan aniga isii share out ma qaado. share out ka aad siinaysid waa YouTube-na waa application. caawa muu xirmi doonaa, biri muu xirmi doonaa, saadamba muu xirmi doonaa, you never know, qof og ma jirto. soo marka waxaad tiri sharaftaada iyo mustaqbalkaaga igu soo wareeji share out ma qaado. waxaa laga yaabaa share out-ka u samaysay xitaa inaysan dadba ka soo raacin, inaysan waxbaba ka helin, adigiina gabadhii mustaqbalkeedii aad baabi'isay. taas marka ma usoo noqon kartaa oo ma usoo celin kartaa mustaqbalkii gabadhi ay lahayd? absolutely maya. marka tan tusaalaha idinkugu filnaato. haddii aad walaashaa ama walaalka aad caawinaysid caawi waxaad ku caawin kartid. haddii aadan caawin karinna qofka bini aadamka ah haddii uu yahay qof qalbigiisa wanaagsan yahay waxaa lagu garan karaa meesha uu ku nool yahay ama bii'ada uu ku nool yahay, dadka ku hareer nool ayaa lagu garan karaa intaan asaga la ogaanin ka hor. intaasi ha idiin noqoto canaan videos gabadhaas ay soo duubtay, because waxaa jira siro badan oo dadka qaar ee la aamusan ee la jifteen ay kuwana YouTube-ka bay iskaga baxeen markaad waxyaabaha. ani hadda ma dhahay shakhsiyaadkaas sameeyay gabadhaas hadda waxaan kala talinayaa inaysan shakhsiyaadka magacyadooda aysan soo sheegin. tan markaan u gudbo saddexaad dadka faniska ah ama dadka Soomaaliyeed ee ku xiran channelada youtuberada ah waxaan idin leeyahay horta runtii aad iyo aad baad u mahadsantihiin. horta qof walba oo halkan camera soo furta oo soo hordhiga oo soo hadla wuxuu la soo hadlaa ama soo hordhiga ama istusiya waa dadka. idinkana waxaan laga rabaa qofka caawimaadiina idinkaga soo baahdo inaad ku caawisaan wuxuu caawimaadiina uu idinkaga soo baahdo. waxa kaliya uu rabo qofka waa subscribe-kaasna waxay adiga yacni waxba xaggaaga kama dhigto, laakiin asaga waxbay u tahay, waxbay u tartaa. waxaan marka idinkaga codsanayaa haddii aad aragtaan qof sidaan oo kale dhibano u ah noloshiisana rabo inuu horumar gaarsiiyo inaad subscribe-ka ku caawisaan oo aadan ka maxaalaha-garanina. 100% waxaa jira dadyo fara badan oo dacaddi noocan oo kale lagula dhaqmo meeshay doonaan ha joogaan. waxaan idin leeyahay reer Malaysia, youtuberada Malaysia, dadka yacni gabadhaan warkaan ku dhahay aniga ma dhihi karo wax la dhahay ma jirto.
waa beenteed ma dhihi karo sababtoo ah way dhaaratay waxaa la yiri qof dhaarta qofkii aamini waayo ayaa ka daran waa sababta fiidiyoona u soo qaatay way jiraan dadyo qaar waxyaabo aanan lagu sameeynin soo bandhigo social media intii lagu jiro laakiin gabadhan maadaama ay dhaaratay ee intii kitaab jaamacaan gacanta u gashan karaa ayna nagu hor ciileeno soo ciil iyo waxa uu ka muuqdo taas darteed ayaan u soo qaatay fiidiyogan ayaan maxaa la yiraahdaa aan ku aaminay marka anyway daba waxaan idin leeyahay muuqaalka xigo inta aan ku kulmi doono waxa idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh